السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعلي سعيد فقي والسفير كصوماليا ميدوغا يوروب waxaan saaki aan meeshan ka soo dejinay 150 ka badan oo dhalinyaro ah oo ka wada yimid magaalada Tripoli oo ay ku wada jireen xabsi maaragtay dalka Liibiya dhalinyaradaas oo Liibiya aad ugu dhibaataysaneed runtii waxay nagu qaadatay muddo aad u dheer ah inaan soo daadgureyno waxay kala yimaadeen magaalooyin waxay kala yimaadeen xabsiyo kala duwan xabsiga sida xabsiga Tajora xabsiga maaragtay Tariiqo Sika Tariiqul Mataar Aynul Saara iyo Janzuur magaratay marka axsaabta beesh xabsiyadaas aan ka keenay marka dhalinyarada runtii waxay ahaayeen dhalinyaro magafa intay gacanta u galeen oo lacagtii laga qaatay kadib markii lacagta laga qaatay badii markay galeen dawladdii ay soo wada qabatay oo xabsiyadii la keenay marka kan ugu yar ayaa wuxuu meesha ku jiraa ilaa 8 bilood marka xabsigana waa meel aad u dhib badan runtii maaragtay dhalinyarada gaajo baa ku soo dishay cudurray ka soo qaadeen waxaa kaloo jira mataqaanaa runtii inay farxad weyn ay tahay in dawladda Soomaaliyeed maanta ay arintaas ay iska mas'uuliyad iska saartay si dhalinyaradan wadankooda loogu soo celin lahaay tiradooda guud ahaan waa 150 iyo wax la jiro waxaa jira Soomaali badan oo xabsiyada ku geeriyooday iyo kuwa kale oo badan aan badda ku dhintay wax la diiwaan geliyay ma jiro wax la diiwaan geliyay male bishii haday ugu yartahay waxaa dhimatay ilaa iyo maaragtay 10 dhalinyaro Soomaali ah meesha aaday u xuntahay meel aad u kulul badan oo maqsin weyn ayay ku xareysayeen dabeel leheen waxba leheen cudur kasta la iska qaadaa marka runtii aaday ugu dhibaataysan dhalinyarada Soomaaliyeed meeshaas